howlgalkan oo ahaa mid aad u ballaaran oo ay si wada jir u fulinayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa Amisom iyo kuwa Itoobiya ee ku sugan gobolka Hiiraan ayay saaka ka bilaabeen xaafadaha gudaha magaalada Beledweyne. howlgalkan oo ujeedkiisu ahaa sugidda amniga iyo kontroolka hubka sharci darrada ah ee lagu haysto gudaha magaalada Beledweyne ayay ciidamadu maanta ku baarayeen dhammaan guryaha iyo goobaha ganacsiga ee gudaha magaalada Beledweyne. waxaan lagu arkayay dhammaan wadooyinka soo gala iyo kuwa gudaha magaalada Beledweyne dhexmara ciidamadan isku dhafka oo howlgalkan ka qayb qaadanaya. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo xeer ilaaliyaasha ayaa dhanka kale kormeer ku marayay goobaha maanta ay howlgalka ka wadeen ciidamada iyagoona booqday xarumaha waxbarashada isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne iyo argadii magaalada oo dib u dhis laga bilaabay. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo ayaa booqday xaruntii ciidamada daraawiishta oo hadda ah iskuulka mujamac oo arday badan ay wax ku bartaan iyo isbitaalka guud ee magaalada Beledweyne oo dhawaan qalab caafimaad la gaarsiiyay isla markaana dayactir lagu wado inta aan qalabkaasi caafimaad oo ahaa sariiro la dhigin. howlgalka kadib ayuu gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cabdi Faarax Laqanyo warbaahinta qaranka kula hadlay xafiiskiisa waxaana uu sheegay in howlgalkan uu socdo lana wadi doono inta laga xaqiijinayo ammaanka magaalada Beledweyne. بسم الله runtii saan arkaysay maanta waxaa jiray howlgal ay sameynayeen ciidamada qalabka sida gobolka Hiiraan oo gacan ka helaya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Amisom. howlgalkaas ujeedadiisu ahayd in lagu sugo ammaanka magaalada Beledweyne oo guryahan runtii waxoogaa aad mooday in waxoogaa amni xumo ay ka jireen oo ay bilaabatay in la arkay dad shacbi oo waxayaan la qaban oo hub wata xaafadaha laftooda oo moogtay cabasho ay ka timiday. hawshaas way bilaabatay saaki aroortii 5tii subaxnimo ayay bilaabatay ilaa haddana way socotaa. howlgalkii ilaa hadda xogtaan helayno ciidamadayna soo gaarsiinayaan runtii meel fiican oo maraya. dadka magaalada deganina runtii si fiican buu u soo dhaweeyay in amniga la sugo. waxyaabaha ugu daran runtii hadda aan xooga saarayna waxay ahayd in ummadda laga qabto waxyaabaha qarxa waxyaaba wixii qarxa ama hub ha ahaato ama waxala wixii amniga wax u dhimi kara in la ogaado gaadiidka degan ama laga leeyahay ama ku sugan maanta magaalada Beledweyne si loo ogaado baabuurkaas cidda iska leh iyo meesha uu ku socday hadduu safar ahaa. arrintaas runtii meel fiican ay maraysaa waana hasleenahay waa howlgal sii socon doona. aan leeyahayna runtii ummaddu way u baahan tahay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo beryahan waxoogaa aad mooday in xoogaa la is dhigtay. tan kale amniga insha Allah magaalada Beledweyne lagu xusayana insha Allah way sii socon doontaa. waxaan kaloo ku tali jirnaa sidoo kale in meel kasto amni darro ka jirto gobolka haddii dib u heshiisiin tahay haddii xoreynta degmooyinka maqan ay tahay intaba diyaargarowgeynii mar hore ahaa waxaan sugaynaa amar ah la dhaqaaqo. waxaan leeyahay reer Hiiraan gobol barwaaqa dal barwaaqa ummad walaalaha wada degan ayaa tihiin. hore loo socdo amnigana hala wada sugo walaalnimada iyo reer Hiiraan taasana anfacaysa qaranka Soomaaliya anfacaysa. ma markii ugu horeysay oo howlgal laga fuliyo gudaha magaalada Beledweyne hase yeeshee waxa uu imaanayaa howlgalkani kadib markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay shalay ku dhawaaqday amar ah in aan la arki karin dad isku wata hub iyo dhar shibila. Ilyas Axmed Cilmi warbaahinta qaranka Beledweyne.